بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay biology aynu ku baranayno grade 9 fasalka 9aad ama form 1 waxaan maraynaa lesson 9 oo markaas ah 10ka 9aad 10kana waxaan kaga hadli doonaa cell membrane and cell wall ayaan kaga hadli doonaa waa gidaarka unuga ama xuubka unuga saaran ayaan 10kan uga hadli doonaa waxaan filaa marka 8 aynu horay u soo qaadanay in markaas si fiican loo wada fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 8 waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp aad nagala soo hadli kartaa ama email aad marka inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga xanwaan uga dhigay qaybta aad rabto inaad su'aal naga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee 8 ah in la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono taa ku saabsanayteen cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in marka la raadiyo in gudaha gal marka course-ku waa biology grade 9 aynu ku baranayno lesson 9 oo markaas 10ka 9aadna waxaanu markaas ku baran doonaa cell membrane or cell wall labadooda ayaan markaas kaga hadli doonaa marka hore aynu ka hadalno waxa loo yaqaan components of a cell waxa waaye qaybaha markaas uu ka kooban yahay cellka ama unuga marka laga hadlayo the major components qaybaha ugu waaweyn ee of cell cellka uu leeyahay cellka qaybaha uu ka kooban yahay waxay yihiin cell membrane and cell wall waxa way cell membrane waxa way waa animal cell way unugyada xayawaanka waxay leeyihiin cell membrane ama laakiin plant cells waxa u dheer ayaga cell wall ayaa markaas u dheer cytoplasm ay leeyihiin qayb oo markaas dareere ah oo cellkan uu leeyahay aynu qaadan doono sidoo kale waxay leeyihiin bu markaas nucleus waxa loo yaqaan bu ay markaas leeyihiin saddexdan qaybood ayaa markaas ah components ugu waaweyn ee cellka markaas uu leeyahay waa cell membrane iyo cell wall oo plant cells ay leeyihiin ama laakiin animal cells waxay leeyihiin waxa loo yaqaan cell membrane ay markaas leeyihiin kaliya leeyihiin cytoplasmna way wada leeyihiin nucleusna way wada leeyihiin the cytoplasm marka cytoplasmka oo qaybta dareeraha ee cellka uu leeyahay iyo sidoo kale and the nucleus iyo sidoo kale buuda together si wada jir ah waxa markaas arcolet lagu magacaabo protoplasm ayaa markaas loo yaqaan yani labadoodaba yani waxa waaye cytoplasmka iyo sidoo kale waxa loo yaqaan nucleuska labadoodaba waxa la isku dhahaa protoplasm ayaa markaas la isku dhahaa laakiin cell membrane iyo cell wall ay gaar way labadooda marka la isku qabanayo waxa la yiraahdaa protoplasm soo marka major components of cell waxay noqon kartaa cell membrane and cell wall labadan in la isku qabtana waxay noqonayaan protoplasm ay markaas noqonayaan aynu eegna marka cell membrane iyo cell wall aynu comparison aynu ku sameeyno isbarbardhig aynu ku sameeyno qaybtan waa animal cell qaabka uu sameeysan waa qaabkan plant cell kana ama unuga dhirtana waa qaabkan uu sameeysan yahay animal cellka ama unuga xayawaanka wuxuu leeyahay nucleus bu ayuu markaas leeyahay buudiisa waatana halka buudan waxay kaga taalaa qaybta dhexe ay ku aadan tahay ama laakiin plant cellka buuda waxay kaga taalaa gees ay kaga taalaa cytoplasm ay leeyihiin labadoodaba waa qayb dareere ah oo markaas unuga uu leeyahay animal cellka uu leeyahay plant cellkana uu leeyahay cell membrane ay leeyihiin labadoodaba waa xub unugeed ay leeyihiin mitochondria ay leeyihiin tamar dhaliye ay leeyihiin labadoodaba ama kan marka plant cellka waxa u dheer isaga cell wall ayuu leeyahay gidaar unugeed ayuu leeyahay chloroplastis ayuu leeyahay waxa loo yaqaano cagaarside ayuu markaas leeyahay plant cellska markaas leeyahay vacuole ayaa sidoo kale kamid ah oo qaybta markaas ugu dambeysay qaybtan ayaa vacuole marka loo yaqaan ayagoo faahfaahsan waynu qaadan doonaa marka hore cell membrane-ka aynu markaas si gaar ah aynu u qaadaa dhigno cellska markaan ka hadlayno unugyada half waxay leeyihiin a limiting boundary yani waxa waaye xuduud yani waxa waaye xadidaysa cellka xadidaysa meeshuu ku egyahay xadidaysa kooled waxa loo yaqaan cell membrane ee loo yaqaan magac kale loo yaqaan ayaa jira oo ah plasma membrane waa markaas loo yaqaan waxa loo yaqaan cell membrane-ka soo marka ismade up isagu wuxuu ka sameeysan yahay cell membrane-ka waa phospholipid bilayer laba lakable ka samaysan phospholipid ka samaysan kaasoo embedded gundhig u ah yani waxa loo yaqaan phospholipid kan waxa gundhig u ah with proteino ama waxa loo yaqaan dhisayaal ayaa markaas muhiim ah scientists marka culimada describe way cadeeyeen the cell membrane inuu yahay fluid mosaic ahaan yani waxa way dareere haay ahaan ay markaas ku cadeeyeen functions marka shaqooyinka uu qabto waxa loo yaqaan cell membrane-ka shaqooyinka isaga uu qabto aad ay u tiro badan yihiin si aad waxaan ka soo qaadan doonaa qaar kamid ah shaqooyinkaas
the plasma membrane of cell membrane sidoo kale loo yaqaan includes wuxuu markaasi uu daboolaa the cell contents qaybta unugyada ay ka kooban tahay isaga markaasi daboola way talabaad waxa way shaqada labaad ee cell membrane ka plasma membrane uu qabto it provides isaga wuxuu siiyaa yani cell membrane wuxuu siiyaa cellka unuga ayaa wuxuu siiyaa shape yani qaab in animal cells unugyada xayawaanka like sida wuxuu siiyaa the shape of red blood cells unugyada yani waxa way cascas ee dhiiga qaab markaasi shape ayuu markaa ayaga uu markaasi siiyaa qodobka saddexaad wuxuu leeyahay allows wuxuu u ogolaadaa cell membrane wuxuu u ogolaadaa to transport inay gudbiso of certain substances walxo kala duwan inay gudbiso ayuu markaasi u ogolaadaa cell membrane yani waxa way into and out of the cell way cellka gudihiisa in markaasi loo gudbiyo cellkan laga soo saaro but laakiin not all substances ma ahan dhammaan waxyaabaha markaasi inay markaasi cellka yani kuwa gala ma ahan sidoo kale dhammaan markaasi substances ma ahan kuwa cellka ka soo baxa ma ahan yani waxa way kuwa markaasi markaasi gala marna markaasi aan gelin markana cell wall maxaa la yiraahdaa some cells qaar kamid ah unugyada like plant cells sida unugyada dhirta the cell membrane xuubka unug surrounded by waxa ku hareeraysan an outer boundary xuduud markaasi dibadeed ayaa ku hareeraysan koolad waxa loo yaqaan cell wall ayaa markaas loo yaqaan qaar kamid ah unugyada ay kamid yihiin unugyada dhirta ay kamid yihiin cell membrane kooda ama xuubka unug ayaga ay leeyihiin waxa ku hareeraysan waxa loo yaqaan outer boundary ayaa markaasi ku hareeraysan waxaana loo yaqaan cell wall ayaa markaasi loo yaqaan functions marka shaqooyinka uu qabto waxa loo yaqaan cell wallka it protects wuxuu difaaca supports una taageera the animal cell unuga dhirta ayuu markaasi isaga u taageeraa waa cell wall way it gives wuxuu siiyaa the plant dhirta wuxuu siiyaa its final shape plant cellka ama unuga dhirta wuxuu siiyaa qaabka markaasi shapekeeda ugu dambeeya ayuu markaasi siiyaa it is fully permeable membrane waa wuxuu markaasi wax walba aysan markaasi ka gudbi karin way markana questions oo markaasi su'aalaha 10 su'aasha koobaad waxay ku leedahay list waxa tahda the major components of the cell qaybaha ugu waaweyn ee cellka uu ka kooban yahay su'aasha labaad waxay ku leedahay what is a protoplasm maxaa loo yaqaan protoplasm waxa la yiraahdaa su'aasha saddexaad waxay ku leedahay cells unugyada waxay leeyihiin limited boundary xuduud markaasi xadidaysa meesha ay ku agayeen college waxaana loo yaqaan what maxaa loo yaqaan su'aasha afraad waxay ku leedahay what's college maxaa loo yaqaan the outer boundary of plant cells unugyada dhirta marka laga hadlayo xuduud dibadeeda ayaga ay leeyihiin magac loogu yeero maxaa waaye su'aasha shanaad waxay ku leedahay right waxaad qortaa two functions laba shaqo of cell wall uu qabto gidaarka unuga ama cell wall uu qabto ayaa markaasi su'aasha shanaad ay ku leedahay waxaan filayaa in casharkan si fiican loo wada fahmay intaan ku soo gabagabeynayna casharkan intaan ku kulmi doona casharka xigana waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadiina wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh